madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saaka ka shaqo tagay xarunta wasaaradda gaashaandhigga oo hooy iyo xafiisba u ah ayaa maanta wuxuu dugsiga tababarka booliska ee General Kaahiyo uu tababar ugu soo xiray in ka badan 600 oo askari kuwaas oo ka mid noqonaya ciidamada daraawiishta Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa sheegay in dhalinyaradan oo ka damqanaysa shacabka Soomaaliyeed ay go'aansadeen inay ku biiraan ciidanka si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab. Jawaabna u ah baaqi uu jeediyay 18 bishii Oktoobar ee ku saleysnaa inaan loo kala harin dagaalka lagu jiro Al-Shabaab. madaxweynuhu waxa uu dhalinyaradan kula dardaarmay inay u diyaar garoobaan dagaal wadanka looga saarayo ururka Al-Shabaab, waxaana uu sheegay in isaga iyo madaxda kale ee dawladduba ay hogaamin doonaan dagaalkaasi. waxa halkaan iiga muuqda ciidan diyaarsan, ciidan nidaamsan yaa halkaan iiga muuqda oo diyaar u ah inay dalkooda ka xoreeyaan horarka nabadiidka ee Al-Shabaab ee khawaarijta ah ee nagu soo duushay ee dalkeena tafaha haysa lugaha haysa oo diidan inaan la tartanno caalamka intiisa kale. waxaad doorateen inaad u dhimataan si gobonimo leh inaad u dhimataan oo aanan hilibkiina dhulka laga wada aruurin oo aan la isu geynin, oo haddaad dhimanayso oo ilaahay waqtigaagu uu meeshaasi ku ekeeyay inaad u dhimataan si sharaf badan idinkoo difaacaya diintiina, idinkoo difaacaya dalkiina, idinkoo difaacaya dadkiina, idinkoo difaacaya deegaankiina inaad u dhimataan oo waxa idinka dambeeya oo caruurtiina ah ay ku noolaadaan sharaf iyo karaamo iyo xurmo ay ku noolaadaan, aysan ku noolaan dulinimo iyo gunnimo iyo qabjabnimo inaysan ku noolaan. nabadiidku maanta naxdin yay ku joogaan maanta waa naxsan yihiin. maxaa yeelay waxaa xaqiiqa inaa geesiyiintihiin iyagu waxay ku dagaalayaan xaq ma aha, waxay ku dagaalayaan diin difaaci maayaan, waxay difaacayaan caqiido shisheeye difaacayaan. idinkaa ka adkaanaya marka maanta waxay ku joogaan nabadiidku naxdin xaqiiqo weey, naxdin ayay ku joogaan. waxaa noo wada ballana kulligeen iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inaan u istaagno dalkeenna, inaan difaacano caruurteenna iyo mustaqbalkooda inaan difaacano. soo saas ballan ilaahay maaha waa qaadeen soo maaha. annaguna waa idin garab taagannahay, waa idin garab taagannahay maaha, waa idin hor soconnaa, waana guulaysanaynaa insha Allah. Axmed Saciid Axmed, Telefishinka Cable, magaalada Muqdisho.